haddaad tahay qof caajis badan ruqya shido. ruqya markastoo shidanaysa caajiskay kaa qaadee yacni wax walboo jirkaaga saaran shayaadiinta wax walbay kaa qaadee caajiska dhanay kaa qaadee istaag il hadday ku haysa xataa ma aragtay isha way kaa baxee xaasid hadduu ku hayo xaasidka waqtigaas uu kaa kaca shaqadaada yaa qabsanay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axbaabi ilkiraam waa idin salaamu calayka qaaliga meel walba adduunka aad ku joogtiin waa walaashiina Maryama soo dhawaada ayaa idin leeyahay halkaad naga daawanaysaanna waa dacwa aan iskaashi family sayidin fiicantiin xaaladiina ka warama alxamdulilah anagana waa idin labanahay waxaan rajeynaa qof walba idinkeeda kamid ah inuu caafimaad qabo. maanta muuqaalkeen muxuu ku saabsan yahay muuqaalkii hadda routiinka aan soo gelinayay kommentiyaasha aad kusoo qorteen aan rabaa inaan ii jawaabo ma fahanteen. muuqaalkeena kadib kommentiyada aad kusoo qorteen commentis oo waxaa ku jiro u baahan in loo jawaabo ma fahanteen. soo waa tixgelinaya ayagana commentigaasayt kuwana waxay dalbanayaan inaa lala taliyo marka commentiyadaas aan rabaa inaan ka jawaabo. saana ujeedin waxaa u socdaa suuqa u socdaa waxaa rabaa inaan vlog nagii soo duubo. soo vlog haddaa ka imaado waa daalaa muuqaal manii samayn karin shaqo kalena waa galaa ma fahanteen. soo markaasna waxaa noqonaa busy aa noqonaa marka waxaan jeclaystay intaana bixin ka hor inaan igii reebo muuqaalkanayt oo idinkaga jawaabo commentiskiina ma fahanteen. soo marka soo dhawaada channelka subscribe noo saara muuqaalkan laagtiisa noo badiya aada u mahadsantihiin. commentiga ugu hore wuxuu leeyahay oo u baahan in loo jawaabo umudalaxa waxay leedahay maasha allah famil qurux badan waxaan joogaa Nairobi waxaan ahay hooyo 2 caruur ay haysata haddana walac shaqaalo waan iska dhaafay laakiin guriga shaqadiisa aad bay iigu adag tahay. wiilal qaraabada ayaa guriga joogaan iyo xaajiga laakiin dhammaantood shaqo ayay aadaan anigana waxaan dhigtaa taxfiid anoo caruur ila taagan waayo qof aan ugu taga ma haysto. anigana waxaan sharti ku maray inaan quraanka xafido intaana umulin ka hor shaqaalo la'aan qasaalad la'aan culays gurigii wax aan suubiyaan kasi la'ahay tala isiiya weligay qoraal dheer ah ma soo qorin. maasha allah baa ilaaha kuu fududay quraanka oo ilaaha kuu fududay inaa xifdisid maadaama aad tira shartiyan ku galay intaana umulin ka hor laakiin adiga culays badan aad dareemaysaa saa arkaayo naftaada ha kalifin shaqaalayaasha kugu fiicanaa la helaa ma fahantay. soo marka maadaama culays fara badan aad dareemayso walac aad tahay haddaad walac ahaan lahayn way kaa yara qafiifsanaan lahayd laakiin hadda qof walac ahaa tahay haddana waxaa aadaa meela quraan kusoo xifdinaysa madarasa aadaa 2 caruuroo kugu sii xiriirta aa haysataa guriga waxaa kuu joogo wiilal qaraabada ninkaaga shaqo aadaa wiilashana shaqay aadaanaa dhahday khasaalad ma haystiyaa dhahday gurigiina shaqaale kuuma joogto culayskaaga aad u badan yahay because shaqaale la'aan haddaad tahay khasaalad waa inaa haysatid waayo ayadaa kuu fududaynayso guriga shaqada ugu weyn oo taalana waxaa waaye dharka waaye ma fahantay. dharkani ma awoodi karti inaad gacan ku dhaqdid adoo walacay adoo xaaladaada saan ay tahay ma fahantay. marka adi camal waxaa u baahan tahay qof ku caawiya u baahan tahay xaaladaada yacni caawinaada u baahan tahay adi camal qof inuu ku caawiya u baahan tahay. ani ahaan waxaa kugula talinahay booska haddaa joogi lahay maadaama qaraabana guriga ay joogto qasaaladna ay oolin walacna aad tahay waa inaa raadsataa qof ku caawiyo. ilmaha la tagaa tir ilmaha haddii lagu ogolyaa meesha inaad la tagtid way fiican tahaybo way kasii fiican tahay. soo marka aniga waxaan ku dhihi lahaa qof ku caawiyo raadso. Nairobi waxaaba jirto meel anaga Mombasa ma ku arkinayo inaan ku haysanaa u malaynaa because ma arkin. Nairobi waxaaba jirto meel oo shaqaalayaasha lagu tababaro yacni koox dhan waayo shaqaalayaashaasay tababaraan guriga habeentiisii cunto kariskiisii wixiisii oo dhan ayagaa tababarayaan. kos adi waqtiyada camal dadkas camal u baahan tahay qof tababaran meesha aad kasoo qaadanaysa aa hubtid oo maxaan ku dhahay lagaa soo jeekime lagaa soo baaray aa u baahan tahay maadaama aa wax soo baranaysid haddana xaalad walac aa ku jirtid ilmo ay kugu sii xariiraan gurigana qaraabo ay joogto ani waxaa ku dhihi lahay qof ku caawiyo raadso naftaada ha kalifin because xaaladii lagugu caawin lahaa ku jirtaa. taasi waa midda koowaad wax walbay kaa qabanay. tan labaadna haddii ilaahay cuntadaada kuu fududeeyo adoo walacay wax aad karsan kartid wax aad samaysan kartid haba isdhibinbo cuntadaada karso guriga adoo shay ka qabanin ka bax madarasadaada aad markaad soo laabanaysid shaqaalayaal waxaa jira half day la qabsado waco ha kuu imaato
hooshii oo dhan xooggeeda ha kaa qabato adigana cuntadaada iska karso saas waa kula faase because qof walac ah yacni hooshaas dhan ma awoodi kara inkees xataa haddaa walac tahay oo cuntada ilaahay kuu fududay jikadaada geli kartid walaa shaqadii kaloo guriga way adkaanaysaa xaaladaada waxaa waaye in lagu caawiya u baahan tahay aniga labadaas mid aa kugula talin lahay saasna samee walaashii culays dhan ha issaarin because culays badan haddaa issaartid culayskii wuxuu kuu keenaa quraanka aad baranaysa xataa inaa ka caajistid oo kuu keenaa ma fahamta marka haafdheegaas qabso haddaa cuntadaa karsan kartid haddaa cuntadaa karsan karinna kuwaan la tababaray raadso ha ku imaadaan ha ku qabadaan haddaa awoodi kartid labadaas mid ayaan kugula talin lahay maadaama adiga hadeertaan xaalad walac aa ku jirtid oo culeyskaaga u badan yahay labadaas mid ayaan kugula talin lahay haddana qof hami lahaa tahay intaada umulin ka hor waxaa ku haminaysaa inaad qur-aanka xifdisid soo marka inuu ilaahayna ha kuu fududeeyo si aada aga caajisin howsha guriga wax kaa fududeeya raadso labadaas mid ayaana ku caawin karto abaayo ani marka saasaan kugula talin lahay abaayo waxaan rajeynaa inaa ifahantay commentiga xig gabadha ayadan waxay leedahay assalaamu calaykum walaal waa runtaa shaqaalaha way jaan badan tahay laakiin cunug yar oo 3 bil ayaa haystaa naas kaliya cabo sidee 4 caruur ah joogto wax walba lagaa rabo xaajiga kula joogin ka waran maryana ugu qoran waxaa fahmi waaya marka commentigaas inaa ani igu wadid iyo inaa ad isku wadid because ani waxaa ii jooga ilmo yar oo 3 bil jiro naas nuugaya naas oo kala nuugaya 4 caruurna waa igu xiriirtaa laakiin meeshaan ku kala saaraynaayo waxaa tiri xaajiga aan kula joogin ka waran aniga hadda xaajigay waa ila joogaa commentiga adigoo kugu socdaa marka soo marka ani waxaa kugula dalin lahaa 4 caruur allah kuu dhaafo iyo hal oo naas aa nuujinaysid xaajigana aa kula joogin aa dhaan haddayba kasii fiican tahay adi shaqadaada waa qabsan kartaa because wax ku culays ku haysta ma lahan 4taada caruur dugsi may aadaan iskuul may aadaan labadaba maadan sheegin hadday dugsi ku aadaan ama iskuul ay ku aadaan aday kuusii fiican tahay because mar walba waxaa helaysaa nafaasaa helay aadanaha kale ku qabsatid ilmo 3 bilood jirana waxaa aga faa'iideysan kartaa naaska markaa siiso oo kaa seexdo ayaa markasta ka faa'iideysan kartaa oo shaqadaada jabjabba aad soo qabsan kartaa ma fahanti xaajiga hadduu kula jooginna wayba kasii fiican tahay because xaajiga shaqo kale waa asi naftirkiisa because shaqadii oo ka imaada cuntadiisa inaa u diyaarisid waa laakiin adiga ilmahaaga bas haddaad tihiin subaxdii oo soo kacee intay ayaga ka hurdayaan shaqada gurigaa iska nadiifsanaysaa cuntadooda u diyaarsanay iskuul haddaa geenaysa ama dugsi aa geenaysa ilmahaaga yar intaa ku xiranaysaa waa xambaarsanay ilmahaaga dugsigooda iyo iskuulkooda kala geysanay gurigaaga waxaa kusoo laabanaya asoo sidiisa nadiif kugu ah markay ilmaha kuu soo jeedaan ee joogaan guriga shaqaha qaban ayaga ku mashquul marka ay kaa jiifaan cunugta ay kaa jiifta ayagana waxbarashadooda ay kaa jiraan shaqadaada qabso ani taasaa kugula talin lahay taasaa best way because adi hadeertaan shaqaale haddaa keensatid jaamley kugu dilaysaa ma fahante soo dadka isku mid maahan dadaa iska jecel raaxada inay iska jiiftaan jecel markastana waxaa ku dadaashaa adkaarta oo nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhiisa u tagtay ee dhahday waxaa u baahanahay shaqaalo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay maya adiga shaqadaada qabso laakiin habeenkii markay aad sii seexanaysid adkaartaan aqriso subxaanallah oo 33 jeer walxamdulillah oo 33 jeer والله أكبر أو صدري أفرجر يعني مركا أخرسني صباحدي شقدنا ويكون فضانيسا دابرويس أذكرتس إن شاء الله شقدنا ويكون فضانيسا وحولسنا كم قفصنا هذه ماشي وفضة بجوكتاب حاج ما بكل جوجبه أصاب شقك على حاجة مرك يعني أنتو مقيني هاي وحال الربا إن إن أوسي ديار سعنتدي بحيس أوسي ديار سدواي تاس أيضا شقك الواهير كريجا قال ما هو laakiin hadda wuu ka maqan yahay markuu ku imaadana asaa ku caawinay soo marka intaas kugula talina commentiga saddexaad Maryam oo qoran rootiinka aad baa ugu helay abaa su'aala ku weydiina aniga horta shaqaale aad baa u necbahay waaba ka waswaasa weelasha markay dhaqdo xitaa waan iska sii raaciyaa laakiin 4 isku nuug ah ii joogto ilaahay ha ii deysto 2 dugsi dhigtaan 2na guriga joogaan shaqaalada ii joogto waxay xafday waa garan la'ahay waxay xafiday ma ka wadaa waxay xaday ma ka wadaa maalin kasta iska fiiji islaha okay waxay xaday ma ka wadaa maalin kasta iska fiijiya islaha haddana waxaan arkaa in xoogo guriga dhankiisa
shaqaalada igu adag tahay aniga caajis dareemaa maxaa igula talin lahayd walaashay macaan xafday haddaan hadalkaaga iska fiijiyo aan sii raaco waxaa u malaynaa waxay xaday inaad ka wadid marka ugu horeysa aadaa u mahadsan tahay waxaa dhahday aadaa u waswaas badanahay waxaa u malaysaa aniga adi inaan isku yara dhownahay anigaba aadaa u waswaas badanahay weelasha markii lii dhaqo waa iska sii raaciyaa laakiin maadaama aada u waswaas badan tahay waxaa kugula talinaya gurigaaga shaqo kasta ha ku taala iska dhaaf sababtoo ah maanta dhan istareysaa ku dilaa maxaa la xaday maxaa la qaaday intee martay jikada maxay ka samaynaysaa qolka maxay ka samaynaysaa soo fiiriya kurbadaas dhan iska dhaaf si aad adigu u nafaastid ayada dhan iska dhaaf gurigaaga shaqo kasta ha kuu taala ilmo kasta ha kuu joogaan waxaa tiri waxay xaday xafday minis way xaday haddaana ku dambaabaynin because waa inaa fiijiyaa rabaa markaa dhahdid saasay noqonay okay intaa adig ku dambaabi lahayd oo dhihi lahayd qofkaa muxuu samaynayaa muxuu yeelooyaa asxan oo adi dhan oo ku joogi lahayd walwal aa ku joogi lahayd inaa iska bixisaa ku fiican caafimaadkaaga automatically saasaa u fiicanba maadaama aa waswaas leedahay maadaama 4 cunug kuu joogta allah kuu daysto ilaahay dhammaanteena awlaada hanoo xafida allah noo daysto intaa awlaad haysanina awlaad baariyaale allah siiyo marka waxaan sameynay marka adi hal sira ku sheeg maadaama oo inaa bixisaa rabtaa haddana waa iska dhaafay waswaasna wuu ku hayaa hal sira ku sheegaa marka sirtaas anigana way ii shaqaysaa adigana way kuu shaqayn doontaa xoogaana ka helaysaa ma fahanti habeenkii markaad seexanaysid waxaa sameynay koob xulba cab xulbada inaa shaax camal u karkarisid miraheeda biyo aa ku shubtay oo karkarisid qabooji koob xulba cab 3 baamiyo inaad jarjartid koob biyo ku shub la dhig subaxdii markaa soo kacda cab asagana markaa sii seexanaysidna waxaa sameysaa adkaarta hadda aan sheegaye oo nabi sallallahu alayhi wasallam gabadhiisa markay u imaatay Fatima radiyallahu anha ay u imaatay oo shaqaale ay weydiisato oo ku dhahay adiga iyo soojkaaga aqriso adkaartaanayti subhanallah 33 walhamdulillah 33 allahu akbar 33 markay aqrisatid shaqadaada way ku fududaanay soo marka digriga ilaahay markasta oo xusaysidna ilaahay jirkaaga wuxuu gelinayaa xoog u gelinayaa xulbada iidana sidoo kaleeto way ku adkeynaysaa oo caajis iyo kiima dareemaysid ma fahanta lafahaaga dhisaysaa habeenkii marka subaxdii habeenkii markaa sii seexanaysa aqriso xulbadaadana cab subaxdii markaa salaada subax soo kacdi maadaama ilmaha isku dugsi ay aadayaan salaad subax ma soo jeedaan soomaa makaa jijiifaan salaad subax markaa soo kacdi hurdaha ku laabanin soo salaad subax markaa soo kacdid oo ilmahana ay ku jiifaan salaada aad tukatay suuratul baqara akhrisatay gurigaaga hagaagsatay يعني أذكرت أخرست قرآن كأخرست وحاسة مسا المها أنت كون جيفان شقد قوا كو عنتظر وكري صباحني مدي عنتظر وكري جوري إسكاه حجاجي مركي المها حق ملانا طبعا كأذا هالساعة واحد من إن الدكسي جلو ديرو قراء ذا مركا وديار سي لبضع سيرير الدكسي جلو دجي لبضع كلا قوسو هرتي وحق ملانا حاجة إنه كل جوجو أو قوسي فيرين عيو صباح marka guriga ku soo laabatid labada kale hadii ku soo jeedaan iska doosi cuntadooda iyo waxooda si ayagana waxay kaaga mashquulaan alaab ay ku cayaaraan meel ugu shub ha ku dheedheelaan ka mashquulaan naftaada u soo jeeso marka cuntadaada iyo waxaaga cuntid baamiyaha cab markaas uu fiican yahay in la cabo asagana baamiyahana asagana aad uu ku caawinaya ma fahanti kadibna waxa gashaa nadaafada guriga ama dhar dhaqan laheeda guriga hagaagsan laheeda waxa sameys kuwi kale intay ka maqan yihiin guriga nadiif ah hagaaji ilmaha kala toosi waxaana ku xisaabtantaa guriga maalin kasta inaad ka shaqeynino wiigi 2 mar ay iska tirtirtid subaxyaha kale iska xaq musqulaha sidoo kale 2 bari kadib hadana iska dhaq saas la ku socodii shaqo ina gurigan ka qabanaysid dhanba ha iska dhiginbo sababtoo ah marka shaqada kullu yoom asa aga fikirtid adigana daal aad dareemaysaa haba ka fikirinba daal ma dareemaysaa iska soo seexo ha shaqeynin beebiga kan ugu yar hoosta soo gash sariirta tag wax yar naso kadib haddana markaa nasatid oo jirkaaga nasto waxaa raboonay inaad shaqadaada qabsatid haddaad tahay qof caajis badan ruqya shido ruqya markastoo shidanaysa caajiskay kaa qaadee يعني وحول بوجركاga saaran shaadiinta wax walba ka qaaday caajiska dhan ka qaaday istaag il hadii ku hayso xataa ma aragtay isha way ka bixi xaasida duu ku hay xaasidka waqtigaas uu ka kaca shaqadaada ya qabsanaysa sometimes waxa dhacda
badanaa dadka shaqaalaha waxay u qabsadaan inay dharkaas ay u nadiifiyaan. Dharkana hadduu qasaalad ku yaalo waa kheyr, haddii ku oolina qasaalad sameyso. Iyo galabtii guriga qaybta oo dumaash dayeen kale kaa hagaajinaya shaqaalo gudaha hoos ma kaa hagaajinaysa ilaa loo sheego waay. Maalin kastana qof bini'aadam daba socon kartid. Galabtii markay kaa tagayso korkaasay kaa nadiifinaysaa. Qof lacalla hadduu kugu soo kordhacaa waxaad isleeyahay guriga nadiif buu kuu yahay. Qof kuu imaada dhan ha ka fikirin. Qofkii adoo shaqo haysatid jaam ilmo kuu joogaan iridaan kasoo galo oo maxaan ku dhahay aa kuu soo sheegin adi qalad ma ku lihid. Siduu kuugu imaada aa ku qaabilaysaa. Kurbadaasba ma liisgeliyo. Marka saas samee adigana taas hadaa sameysid way ku caawinaysaa. Dadka waxaa iskugu jiro qof markaa dhahdid ani shaqaale ma jecla ani saas ma sameeyey. Dad waxaa jira shaqaalaha jecel oo waxaa ku dhahay hal cunug iyagoo u joogaana waxaa arkay shaqaalaha u jooga guriga laga hagaajiya. qof walba marka noloshiisa asaa iskale ma aho, laakiin adi waxaa ku arkooyaa way ani aa ku socda camal aa ku socotaa because adi aad aa u waswaas badan tahay. Maadaama waswaas aa qabtidna haba keensanin ba ha soo dhaweysanin, sababtoo ah inta aa waswaasaysid shaqada ee kuu qabanaysa ha fiirin adiga jiraa kuu siyaadayso, waswaaskii aa kugu siyaaday. Maanta dhan waa isla hadlaysaa inta maxaa laga sameeyey inta maxaa yaala cadhaysaa iskala kaamira xataa haddaa soo xiratid wallaahi kaamirada kasii waswaas badan shaqaala haddaa kaamira usoo xiratid. Saa marka iska dhaafaa kugula talin lahay shaqadaadana sidaas u qabso. Markastoo shaqada qabanaysidna adkaarta af ku haay ilaahay wuu kuu fududeynaa. Saddexdaas commenti waxay soo codsadeen inaan ula taliyo. Waxaa rajeynaa taladeeda inay idin anfacde. Soo mid kastana sida kusii habboon asagaa garanayo. Soo marka waxaa rajeynayaa inay taladeeda idin anfacdo. Asxaabteyda kana waa lasoo talin kartiin. Walaalaha qaaliga muuqaalka halahaasaa kusoo simaya. Soo marka inta kalena aad iyo aad aa u mahadsantihiin commentiyadiina quruxda badan isugu jira dhiirigelinta iyo ducada. Marka aan routine soo duubo waa i dhiirigelisiin. Commentiyo qurux badan ay soo qortiin aad iyo aad aa u mahadsantihiin. Soo marka intaynu muuqaalkan lacag fara badan ii saara. Intaynu muuqaalkiisa xigdib ugu kulmi doono waxaa idin leeyahay fi amaanillah.